dhalinyaro cimrigu waa wax yar cimrigaaga qayb ka mid ah tuuri waqtigaagu yuu kaa dayacmi waa cimrigaagii adigoo aan lagaala tashanba dunida lagu keenay markaad ka baxaysana cidi kaalama tashanayso intaa yar baad joogaysaa markaa labadaa u dhaxeeya imaatankiina lagama talagelin tegisteedana lagaa talagelin maayo se intan yar waxa lagu yidhi bal adigu ikhtiyaar laho oo wax samee intaasaad joogaysaa kooban oo maxay ah 50 sano 20 sano 60 sano 70 sano qofba in aanu garanayn intay noqonayso intaa yar waxa lagu yidhi laka alxurriya intaa yar ayaa lagu yidhi baa aakhirana lagu xisaabinaya intaa yar baad mubtala tahay intaa yar maxaa laga rabaa markaa inaanay lacib iyo lahwi iyo orodkaaga lumin markaa waqtigaagu ama adduun midhaha ka dhalinayo anfac ku leeyahay ama aakhira anfac ku yeesho labadaa waxaan manfac ku lahayn iska dhaaf dadka waxa u dhaxeeya waqtiga siday uga faa'iidaystaan ninka dhalinyaronimadiisa invest garaysa markaa istithmaar maalgashi ninka dhalinyaronimadiisa maalgashada waqtigan ka warramaya waqtigaagaad waxaad ku maalgashanaysaa aakhira iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dan dadka faa'iidsay somaydan maqal hebel baa succeeded buu noqday naajix ninkaa hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhallinyarada ahaa buu si fiican u dadaal wuu soo daalay markuu dhallinyarada ahaa midhihii buu hadda guranaya waqtigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaan waanay cayaarida kaga lumin imika waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooyo ku tidhaahda wax akhriyo inaad wax akhrido intaa yaroo aad u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keenta waa inta adiga kaa soo go'da waa markaad adigu dareento waqtigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaa doontana waad baran karaysaa laakiin wuxuu u baahan yahay in waqti iyo juhdiya in la geliyo haddaad maqasho nin baa caalim noqday nin baa khabiir noqday nin baa ka noqday dadka miyuu ka waqti badnaa maya intan dadku haystaa unbu haysta 50 iyo 60 iyo 70 unbu jira laakiin intan buu isku dayay inuu sida ugu fiican uga faa'iidaysto cimrigaa aynu ka warramaynana waxa ugu sii fiican kana ku jirtaan waayo kanaad imika ku jirteen dhallinyaronimada ah waxay idhahdaan waa cimriga aan cidi kula lahayn markaad weynaato reero iyo carruuro iyo shaqo iyo maxaa la yidhaahdaa cilaaqaad ijtimaaciya iyo waqtigaaga waa lagula yeelanaya markastoo da'daadu sii korodhana waqtigaaga wuu soo yaraanaya waayo dadka kugu xidhmayaa ka sii badanaya intii hore laakiin ninku markuu dhallinyaro yahay cidna mas-uulka ma aha carruur iyo reerana ma daba socdaan bulshada xidhiidh badan lama laha waa naftiisa isaga keligii waqtigiisa leh laakiin iyaga ceebta haysataa waxa weeyaan waxaanay aqoonin how to use it siduu isticmaali lahaa siduu waqtigan uga faa'iidaysan lahaa kaasba ka lumay dhalinyaro wax kastoo aad rabto inaad noqoto waxaan isleeyahay laba waddoon baa lagu gaadhaa waddada koowaad waa ilaahay cabsidii ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii ilaahay ka cabsata ilaahay arrimihiisa waa u fudaydiyaa ilaahay cabsidiisa haddaad laasimto ilaahay arrimihiisa wuu kuu fudaydinaya waxaad arrin leedahay dadku markay fakerayaan waxay idhaahdaan waxaan rabaa inaan diinta barto oo cibaadaysto waayo aakhira inaan badbaado adduunkana inaan xoogsi tago adduunka iyo aakhiraba ilaahay baa iska leh haddaad adduunyo raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa haddaad aakhiro raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa laba wadoo kala gedisani ma jiraan waxaba biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir soo qur-aanka kumaydan arag biyadihi lmulk ilaahay baa mulkiga dhammaantii iska leh wax walbana isaga awooda qofka mu'minkee dhab tahay markaas adduunkana ilaahay buu ka raadiyaa ilaahay macsidi kuma raadiyo adduun markuu raadinayo ilaahay buu ka raadiyaa subxaana wa tacaala waayo ilaahay baa gacantiisa adduunkao dhami ku jira isagaa maamula taa ogeed baa qofka mu'minkii subaxii markuu soo tooso wuxuu yidhaahdaa maxay raditu billaahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وإننا نوامحي إلهي ما ملكي إنسان رالي كنوضي رب النمد وسيدي ومالكي ومدبر الكون إلهي ما ملكي إنسان رالي كاهي إسلام نمدنا ديني يدقم بانو هايستا وضدان مريي ويان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقت الماما هاي والنبي تسعي وضدا إذن قفك مؤمنك واقو مركو بريو إلهي حقي سوكعا
إلهي الرالي هشيسي الرادية حلال يا حرام وحكو الرادية وحلال لو أضوطا حرام وكتغا marka warkayga koobani waxa weeyaan haddaad adduunyo doonayso ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa meel kale lagama raadiyo haddaad aakhiro doonayso inaad badbaadana ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa meel kale lagama raadiyo al-ula wal aakhira soo quraanka kubaydan arag labadaba ilaahay waa iska wa inna lana lal aakhirata aku xiga wal ula labadaba ilaahay baa leh han horana isaga leh tadambana isaga leh isaga markaa maxaa wax lagaga raadiyaa raalli gelintiisa iyo cabsashadiisa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra hadday dhibi kuu timaado waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan waa markaa dhibi ku qabsato ilaahay wuxuu leeyahay makhraj baa kuu furaya marka kalena arrimahaaga lagu fudaydinaya waa lagu islaaxinaya idan ilaahay cabsidiisa qur-aanka imise goor bay ku soo aroortaad u malaynaysa aad u tiro badan ومن يتقي الله يعظم له مئة يا قرنيا يا يعظم له ومن يتقي الله يجعل له فرقانا وصارا ومن يتقي قرانك هداد يكتو ومن يتقي الله نولش شردم بيكو صافسي سبت جاوغيد با إلهي وحو نوغو تلماميا ومديه إذنكو هرية إذنك بوحانو إذن دردار ما إذن فري أن اتقوا الله إلهي كعب صدا هي دمانت إلا إذن فري بس هو قدرك كواد قدرك كواد وحشيريا الدنيا آخرة إلهي بيقعدتي سكوتشر تاي سجها لجراني ولقاه يسكت ديرنا إلهي مع سيدي وعقول رادس هذا الدنيا دون سنة إلهي بهايه آخرة هذا دون سنة بها قدرك الله بعد هذا اللي يرتنا الرباي دين شيء أنا وحويا عمره هو وحيا أذكر أن لقالت تشبه الدنيا الوكارة الدنيا ما كان من يسيء عندنا لقالت تشبه ولا بها يدا لقالت تشبه marun baad iska timiyo dhalat ilaahay baa ku keenay markaad ka baxaysana cidi kaalama tashanayso maalinun bay naftu ka baxaysaa iyo geeri intaa yar baad joogaysaa markaa labadaa u dhaxeeya imaatankiina lagama talagelin tegisteedana lagaa talagelin maayo se intan yar waxa lagu yidhi bal adigu ikhtiyaar laho oo wax samee intan hore shaqo kuma lihid inta dambana shaqo kuma lihid intaasaad joogaysaa kooban oo maxay ah 50 سنة 20 سنة 60 سنة 70 سنة قف إن كانوا قرنين تنور إنت ير وحلو لك الحرية إنت ير أيها لو يلبا آخرنا لو حسابنا إنت ير بد مبتلى طاي إنت ير محل قربا مركا إن أنا اللعب هي اللهو هي أرأرت كأقل مركا قطب كينا لبعض حويان إن إنه كفى إذا سنة وقتها غاية ما يمكن وحيس تورتقلها haddaad maqasho nin baa caalim noqday nin baa khabiir noqday nin baa ka noqday dadka miyuu ka waqti badnaa maya intan dadku haystaa unbu haysta 50 iyo 60 iyo 70 unbu jira laakiin intan buu isku dayay inuu sida ugu fiican uga faa'iideysto marka dadka waxa u dhaxeeya waqtiga siday uga faa'iideystaan qofna wuu dayacaa waqtiga oo cayaar iyo lahwi iyo wuxuu isweydiinayaaba soo dadka ma idan qaar leh arxageen waqtiga ku soo dilaa waqtigiis cimrigiisii baa waan dhib ku haya haddii lagu yidhaahdo iminka 5 sannadood cimrigaaga ha laga jarma yeelaysa yaa yeelaya haddii lagu yidhaha cimriga lagaa nuqsaamiyo lagu marsiin maayo bale xadiidkii muxuu sheegayay aadam miyuu arkay carruurtiisii mid ka mid oo la yidhi cimrigiisu waa imise waqti yar buu loo sheego 40kayga ha looga gooyo buu u tilmaamay hadhow markii waqtigii gaadhay buu haddana diiday ma ogolid waqtigaaga in wax laga jaro adigoo sidaa u diidan ayaa waxaad leedahay maya haddaba anaa saydhsaydhaya oo saad odhanaysaa waxaan akhriya adduuntoona ficil baan ku bixinaya marka waa cimrigii qayb ka mid oo aad adigu tuurayso markaad leedahay xaggaynu ku soo dillaa cimriga waan waqtiga xaggaynu maanta ku soo bixin waxaad leedahay jus yaroo ka mida cimrigaygii talo xaggaan ku tuura bal meel ila daydaya in cimrigaygii ka mid aan rabaa inaan tuure meeshii aan ku tuuri lahaa ila daydaya weeyaan waqtigaa yari wuxuu u baahan yahay sida ugu fiican ee aad uga faa'iideysan karto inaad uga faa'iideyso taa macnaheeduna wax weeyaan waqtigaagu ama adduun midhaha ka dhalinayo anfaca ku leeyahay ama aakhiro anfaca ku yeesho labadaa waxaan manfac ku lahayn iska dhaaf maxaan manfac ku lahayn kubadda la daawadaa manfac ma leedahay dad maantoo dhan daawato Manchester iyo Liverpool ka badinaya maxaad faa'iideysaa
adigu haddaad cayaarto waaba laga yaabaa inaad tidhaahdo waan ororday murqyada ay dhismay jidhkaan kala bixiyey adigu haddaad soo cayaarto waaba suurtagal in la yidhaahdo wuxuun baad faa'iiday intuu doonaba ha leekaaday kastoo khasaaro badanna laga yaabo inuu ku jiro inaad wuxuun faa'iidaa laga yaabo laakiin markaad TV hor fadhiisato ama mobilka hor fadhiisato aad tidhaahdo Liverpool iyo maanta isu baxaya iyo Manchester lama magaalo Ingiriiska ku yaala timanku baa isu baxaya waad maanta oo dhan hor fadhido maxaad faa'iidaysaa maxaad faa'iidaysaa markaad maanta oo dhan social media saaleeday kolba mid soo baxaya social media nimanka sameeyay waxay ugu talagaleen haddaad furto inaanad ka bixin injineerada design gareeya qaar baa waxay ka hadlaan bis waxay design gareeyaan intibaha insaanka qofka si maskaxdiisa loo qabsan karaa marka lagu qabto oo lagu wada yaabo marka adigu soo hari maysid rag baa takhasus ka leh oo lacaga u badan ku qaata oo farsamadoodu ay tahay bahalka haddaad shida inaanad ka bixin ayuu isagu u ballan qaadaya dad saaba tiraahdo inaad ka bixin dil lagu yiraahdo quraanka akhriso ama dariska akhriso nus saac markaad akhrido waxa la imaan doona ma akhriin way markuu tiraahdo war dariskaaga akhriso haddaad saacad guriga fadhido waxa maanta oo dhan baan fadhiyo akhrinay taajka haddaad soo gasho salaada marka la tukado laatan mire lagu yiraahdo quraanka akhriso fadhido waar xagga hebel ku timaad maanta oo dhan masaajidka fadhiyo baad leedahay والله تنطق جو ما انتم نمسك لكن كان هدات شدو صدح ساعات هدات كجرت ما اوغيد تصاور ولا لا رقا بربا سيساو لين قرب وحرونا ما لها نيرفا كجرا او قعمو دبقدان تصاور لها اللي wax kale ma weeyeen wax cilmiya oo ka keentay meed garanaysa ma jiro sida ogeed waxa la yiraahdaa mustawaha ardada dunida uu ka hooseeyo mustawaha ardadii hore ardadii TV iyo ala yiraahdaa social media iyo waxaan oo dhan haysan way ka mustawa hooseeyaan way ku wari waqtigoodii way dayaceen kuwaasina inta ugu badan leh ama waxa loo dhigo akhri jiray ama buugaa kale oo akhrisan jiray cilmu kororsan jiray waqtiga waxa ugu badan la isku dhaafiya buugaag bay ahaan jireen حتى kuwa sheeko bareleyda buugaagta akhriya مثلا buugaagta riwaayadaha novelada waxaas akhriya حتى haddaan wax kala faa'iidin bay oran jireen luqadiisa dhismi jirtay وأدب بو أخرنايا أدب اللغة العربية هذا أخرده عربية وكرب النغنية أدب اللغة الإنجليزية هذا أخرده إنجليزية وكرب حتى بيلين كوي وحى أخري جري وقدام بي وحبي فايدي جري أنا طلاقة اللغة هي قنت اللغة ولينا يكرك عنه سوشيال ميديا لكن اللغة لا جاب مرتو والوضع إيشو بلدالية يركض بلدالية مركب حال دين تلمامية تلمامتي هو روحي هدي لها عبسدي الدنيا أخربا gacantiisa ku jirta tilmaamteeda labaadna waxay ku kooban tahay waqtigaagu yuu ka dayacmi waa cimrigaagii qofna ma ogola cimrigiisa inuu in sadaqa u bixiyo laakiin in baad rabtaa cimrigaagii ka mid ah inta TV iyo social media la daawado haddaad isku darto way misaad malaynaysaa maalintii misaad daawataa TV ama social media haddaan ugu qiyaaso waxay isleeyihiin ninkii nagu yari 3 saacadood meelaha uu ku jira soo maaha ساعة TV وكل بورق وكل بمال وساعة وباكر ريحه وغير لبا ساعات ودو كجيره هدينو لبا ساعات حسابنا عمرغاغا هل سنه قرا ومالتي لبا ساعات كجر واي مسا انا هدي waxa weeyaan 700 iyo 30 saacadood 700 iyo 30 saacadood way misa maalmood 24 dad u qaybiso way misa way taasoo maalmood intaasoo maalmood oo cimrigaaga ka mid meel aad kaga warrantay garinaysa taasoo maalmood oo cimrigaaga ka mid meel aad kaga warrantay garinaysa haddaad intaa waxbarasho gelin lahayd مثلا ardada jaamacaadka dhigta credit hours waxa la yiraahdaa lagu xisaabiyo inta saacadood oo subject qaatay ma jiro subject jaamacadda lagu dhigto oo 730 saacadood la qaato sanad ma jiro subject kasto jaamacadda aad u tagto wax ka yar baad qaadataa way u badan inta credit hour aad soo qaadataa yani khubara noqon lahaydeen inta uun TV iyo social media ku baxda hadaynu cilmiga gelino mid adduunyo mid aakhira ku dooraba hadaynu cilmi gelino dunida khabiiradeedaynu soo baxayna hal takhasus ma aha hal iyo laba iyo saddex iyo afar takhasus baa wada yeelan kartaa cimriga aynu ka warramaynana waxa ugu sii fiican kana ku jirta waayo kana dib ku jirta dhalinyaranimada waxay yiraahdaan waa cimriga aan cidi kula lahayn markaad weynaato رأي عبوري شقي على هذا علاقات اجتماعية وقتك أقول لك يا لريا مركز دود ده دوسي كورونا وقتك أقول صويا رانيا ويا ضدك هو حلم يا كسي بدنيا أنتي وهري لكنكم مركو دلني ريا
عندنا مسؤول كماها عرورية غيرنا ما دبا الصعدان برشادة حديد بدل ما لها ونفتيسة سجا كلي وقت يصله لكن يجا عيبتها يستا وحوية وحنا نقول أقونين how to use it سيدو استعمال لها سيدو وقت كانوا قفا إيديسان لها كاسبا كلمي وحان مركا آخرة مركا لا تقانا حديث النبي قال تقانين وحي شيء جيسا عمرك جودهان اللي سويدينيو لكن كان اللي يرني ماذا ينسى سيجار اللي سويديني وفي شبابه فيما أفناه أو فيما أبلاه عمرك قلنا ولا سويدينيا ودوا انت هذا هيست اختيار كهذا قال لي ايه بحد صبي كان سنة اللي يرني ماذا كسيجارو مسؤولية كلمة ما تهيني محل قبل يسال ويدينيا نفترض مو يعني وحكولات مسؤول كاهين ما جرتو محل غلطه marka waa shaqo gaar ah ninka dhalinyaranimadiisa invest garaysa marka istithmar maalgashi ninka dhalinyaranimadiisa maalgashada waqtigan ka waramaya waqtigaagaad waxaad ku maalgashanaysaa aakhira iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dadka faa'iiday somaydan maqal hebel baa succeeded buu noqday naajix ninka hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhalinyarada ahaa si fiican u dadaal uu soo daalay markuu dhalinyarada ahaa midhihiibuu hadda guranaya waqtigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaan waana cayaarida kaga lumin imika waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooyo ku tidhahda wax akhri inaad wax akhrido ama macallinku markuu homework kuu dira ku yidhaha intaa kasoo shaqeyno talaa kaa macallinka ah waa mid homework badan kalaaskiisaba haddaad gasho wuxuu ku faraya waxaa laga soo shaqeeya intaa yaroo aad u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keentaa waa inta adiga kaa soo go'da waa markaad adigu dareemto waqtigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaa doontana waad baran karaysa laakiin wuxuu u baahan yahay in waqti iyo juhdiya in la geliyo walidaalik dhalinyaro labadaa tale oo keliya haddaan idinku koobo laakiin aad si fiican u fahamtaan oo u qaadataan waqtiga sida loo manage gareeyo iyo time managementku waa wax cilmi la barto laftiisu macallimiintiina waxay idinka sheegi doontaan saad waqtigaaga u isticmaali lahayd sida ugu badan sidee aad uga faa'iidaysan kari lahayd maxay u baahan tahay in waqtigaaga sida u wanaagsan looga jadwal bay u baahan tahay to do list baad u baahan tahay waxan baad u baahan tahay waxan baad u baahan tahay si aad waqtiga uga faa'iidaysan karto labadaa shay haddaa si wanaagsan u garataan kii koowaad muxuu ahaa ya ilaahay cabsidii waynu leenahay adduunka iyo aakhiraba waxay ku jiraan maxay ilaahay gacantiisa marka isaga wixii aynu ka doonanay in cadhadiisa ku raadin aynu ku raadinna maxay ridaa inaynu alla raali gelino inaynu isaga barino inaynu isaga weydiisano inuu nolosha inoo fudaydiyo inoo furo kaasi waa ka koowaad waa ra'si lamr ka labaadna waxa weeyaan maxay waqtigaagu aakhira iyo adduun inuu miduu kuugu jiro cimrigaaga qayb ka mid a ha tuurin cimrigaaga qayb ka mid a ha tuurin labadaa haddaa ka adkaataan anaa idiin ballan qaadaya inaad dunida guulaysataan aakhirana guulaysanaysa labadaa haddaad ka adkaato ilaahay cabsidiisa iyo waqtiga ka faa'iidaysigiisa haddaad ka adkaataan adduunkana culamo waxaad doontaan baa noqonaysaan aakhirana waa liibaanaysaan waa inaanad isku mid noqonin sanadkan iyo sanadka dambe waa ilaa faashil baa tahay shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan inaad ka kortid halkaad shalay taagnayd inaad routine life ku jirto maaha nolol routine oo aan horumar lahayn waa markaad qoftay markaad qoys tahay waxaad u baahan tahay inaad qaabayso qoyskan maxaad ka dabacsantahay xaggaad ku wadaa meeshaad u hogaaminaysaa inay kuu muuqato khudadaad yeeli lahaydna inay kuu muuqato noloshu caraaqil ma weydo waa mashaakil kaa hor imanayaan laakiin mashkilad kasta way out bay leedahay meel looga baxaa bay leedahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii alle ka dhowrsata in alle subxaanahu watacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo haddaba su-aashu waxay tahay noloshaada maxaad ka dabacsantay noloshaada soo socota maxaa kuu qorshaysan inaad jaamacad ka baxdo oo waxbaratid oo guursatid oo lacag samaysid ma intaasaa waxaad u nooshay mise qorshe kalaa jira maxay tahay nolosha dhow ahdaafta ama gaayaadka aynu rabno inaynu taxqiijinno oo samayno gooliska ama himilooyinka aynu rabno inaynu gaadhnaa maxay yihiin
maxay tahay ahdaafteena dheeri maxaa lagu qiyaasaa ma miqyaasu dhalik inaynu hore u soconay inaynu dib u soconno maxaynu ku qiyaasnaa see loo qiimaynaya waxyaabaha wax lagu qiimeeyo markaad mustaqbalka qorshe loo degayo ugu weyn waxaa ka mid ah al-ixsaa'iyaat statistics data in la helo tira koobiyo awooddaada xooggaaga tiradaada dhaqaalahaaga waayo waxaasaad ku qorshaynaysaa inaad mustaqbalka wax kaga qabato ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligad alle cabsidii baa layna faray marka hore kadib baa layna yidhi khudadiinana degsada eega berri waxaa u horumarsanaysaan markaasaa haddana la yidhi wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun waltandur nafsun amarkaa labada hareeroodba waxaa ka xiga alla ka cabsi baa layna faray macnaheedu waxa weeyaan khitadkeenna iyo waxaynu mustaqbalka qorshaynayno dhammi waa inaanu marnaba noqonin wax ilaahay tiisa khilaafsan waayo cid kasta oo khutad degta calaa gayri huda allah lam walan yuflixu ma guulaysanayaan maxaynu u leenahay markaynu qorshe degayno alla ka cabsigu kowha ka noqdo ugu horreyn qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha fududaanayso bini aadamkuna waxa uu jecel yahay uu rajaynaya waa inay wax u fududaadaan xataa hadduu qabanayo inuu si fudud u qabto waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusran baa ilaah yidhi ciddii ilaahay ka cabsata arrinka alle waa u fudaydinaya waxaynu rabnaa khudada u degaynoo dhammi waa nolosha inaynu si fudud u noolaan karno waxaa markaa qorshe la degaya lagu talagalaa riskiska jira waxaad adigu rabto qura lagama hadlee waxaa laga hadlaa maxaa dhib kugu xeeran maxaa kaa hor iman kara maxaa dhici kara maxaa isbeddel iman kara maxaa caqabad kugu noqon kara qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa alla ka cabsigu inuu masaa'ilkaana makhraju yahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii alla ka dhowrsata in alle subxaanahu watacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo qorshuhu wuxuu u baahan yahay in ilaahay subxaanahu watacaala ku hanuuniyo samaha kugu hanuuniyo ama aqoon waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya wattaquu llaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim saa ogeed ayuha alaxiba waxaa layna barayaa inuu qorshaheenna ka horeeyo alla ka cabsigu dadka maanta in badanoo ka mida dadka ummadda qorshaha u degta 5 sane soo socda maxaa la qaban 10 sane soo socda maxaa la qaban 20 sane soo socda maxaa la yeeli waxaynu u badannay inaan masaa'ilkan inooguba jirin tirada inaanay ku jirin dhaatada aynu soo urursanay aynu rabno inaynu wax ku baysgarayno ama ku dhisno haddii alla ka cabsigu uu horeeyo waxaad helaysaa basiira aad ku kala aragto mustaqbalka dheer in ilaahay subxaanahu watacaala toojka ku wiifiyo sida ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana ilaahay haddaa ka dhowrsataan oo la ka cabsigu uu yahay main pointkiina إلهي سبحانه وتعالى وحيدين يليا فرقان بين الحق والباطل وها حق يا باطل كوكل الصعدان أما وها كوكل الصعدان صوابك يا محي يا خطأ أما وها كوكل الصعدان شرك يا خيرك بهلي سنبر بالتلمام يا سبحانه وتعالى إذا كو وحل لنا هاي إلهي وحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللاعب سيدي بالله ينفري مركو هوري kadib baa layna yidhi khudadiinana degsada eega berri waxaa u horumarsanaysaan qodobka labaad aan tilmaamaya wuxuu yahay khudadka dadka muslimiinta ay degayaan hadduu qof yahay iyo hadduu ka badan yahayba waa inuu noqdaa maxay bacd allahi subxaanahu watacaala alictimaadu cala nafs laa cala alghayr laa cala alaakhar caalamka maanta rag baa waxay go'aansadeen inay iyagoo awsiya u noqdaan inay yihiin uun haddaan iyagu ku gardaadin inaad horu maraynin waxna kama jiraan waxaan ku gabagabaynayaa mas'alada tan
waxaad helaysaa ilaahay kaalmadii wattaquu llaha waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilaahay kaalmadiiyo inuu ku waafajiyo sida sawaabku ku jiro nebiguna wuxuu leeyahy ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaahi walaa tacjis ku dadaal waxa ku anfacaya fi dunya walaakhira ilaahayna kaalmayso oo rabbi ha noqdo cidaad ku tiirsanaysaa hana caajisin markaynu masaladan ka hadlayno ugu horreyn waa inaynu garannaa meel firaaqa ama deganin caalam iska bannaan oo adiga qorshaha ku soconaya waxaad qorshaysaa ma deganin waxaynu degannahay duni masaalixda iyo ahdaaftu ay mutadaarib tahay duni iska soo wada horjeeda oo nin waliba maslaxadiisa iyo dantiisa ilaashanayo waxa hubaala marka adduunya aakhiro ayayna hor yaallaa adduunya aakhiro isma leeka isku qiimana maaha isku riski isku mashkiladna maaha taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorshaynayo keebaa mudnaanta leh yani markaad qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities baa kala jira waxbaad kala horraysiinaysaa siday u kala weyn u kala muhiimsan yihiin baad u kala horraysiinaysaa qorshaheena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo waxaan leenahay markaynu qorshe dejinayno waa inuu priorities ku kala horreeyaa weliba waxa hubanti ah haddii qorshaha dambe ee aakhiro uu noqdo ka muhiimadda leh ka adduunyana automatically inuu hagaagayo waayo aakhiro laguma gaadho adduunka kharibkiisa aakhiro waxa iyadana lagu tagay ku islaaxdaa maxay adduunkan islaaxintiisa tanbaa masraca u ah marka ugu horreyn waa inaynu aad uga fakarnaa ilaahay wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قرشها كواد وإنه كجرا وحكا استوءات سميسو براد لكل ميسايا محوية هي جواب تاتو وحكا استوءات سميسو دون كانت قبطه wax kastoo aad qabato amal kastoo ka soo fula baraad la kulmaysaa maxay tahay jawaabteedu sidaa ogeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro la talinaya nin dhalinyaro ah inagu dhalinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa dadna dhalinyaro aragto wax baro nin noqo xoogso guurso shaqayso soo kama ha taladeena talada ugu badan ee dadku waa in dhowun bay dadku arkaan maca kuwana yidhaahdaan indheer garad indheer ma arkaan indhow bay arkaan dadku waa wada indhow garad buu badan yahay waxaynu ilmahaaga qorshaha kuu yaallaa muxuu yahay koowaad iskuul dhigo jaamacad ka bax guurso nin noqo taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar ula tahay waxay u baahantoo dhan baad maxay ula tahay ayaad diyaaraynaysaa iskuulku gali lahaa kuu noqonayo jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo kharashku u baahnaan lahaa waxaasoo dhan waad diyaarinaysaa maxaad uga dan leedahay nolosha dhow inuu guulaysto berritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon markaa qorshahaagu wuxuu badan yahay ma diyaarinay dhammaanteen isku keen dar wadaad iyo wabiinba keen raace intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degaynaa ma ku jirtaa intaa in leegoo investment ahay bal waxa kaleba ha dambeeyaan maya waxaa kugu adag macallinka qur-aanka dhiga $20 la siiyo war kuwa malcamadood waa qaali baa taagantay laakiin waad ogashay jaamacadda dhabka kur inaad bixiso ee uu dhakhtarnimada ka baranayo waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorshaynaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam عبد الله بن عمر ومن اللي يرى أبو الله تلينيا
قربك أنتو كدر بهاي حديث كاتقانين بخاري كيالا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وأنا دل يراه وريا حوك سلمة ورانو يعني ننقو قرصو كان سمايو حول نقو لكن waxaa la ogyahay hadduu tadambe fikradeeda qabataan hore inay islaaxayso saadaradeed buu nabigu wuxuu ku yiri kun fi dunya kaannaka gharib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay غريب stranger qof aan meesha u dhalanin ama waxaad noqotaa maxay oo caabir sabiil qof musaafira qofkaas inta uu ka fakaro inuu meesha joogo ama qorshuhu u dajiyo qorshe leegu daji marka xoogaaga iyo xoolahaaga iyo qorshahaaga xoogeen xaggaad u dajinaysaa tadambaad u dajinaysaa inaad tadambe horaysiiso ayaa muhiima sawgeed ayuha alxiba waxaan leenahay nolosha khudda kama maaranto laabud min takhtiit lilmustaqbal laakiin takhtiitkeenu wuxuu u baahan yahay inaad qorshayso qorshahaagana priority-ga koowaad inuu noqdo qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha annaasu walxijaara ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo qu anfusakum wa ahlikum naara war naftiin iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya waa layna og yahay inaynu tanso ka jecelnahay kallaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira ilaahay wuxuu leeyahay tan dhow baa jeceshiin aakhirana inta badan waa ka tegaysaa laakiin bahasha cagsiyaa laynoo tilmaamaya wabtaqi fiima aataaka allaahu addaara alaakhira war wixii ilaahay ku siiyey nolosha aakhiro ku baadigoob ku raadicee walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkanna dheeftaada ha ilaabin baa la leeyahay yacni priority-gu ama mudnaanta waxaa le maxay aakhira la leeyahay adduunkaaga ku raadicee waxaa laga yaabaa inagu xoolaha waxaad u dhaqaysaa aad magac yeelatid guri weyn aad dhisatid xoolaha ma u dhaqataa inaad guri weyn jannada ka hesho mise gurigan aad ku jirtaa cidhiidhi iyo fikradda koowaad waxa weeyaan inaad ka beddesho waxaa laynoo tilmaamayaa aakhir inay mudnaanta yeelato waxsin kama axsana allahu ilayk adduunkana ha ilaabin baa la yidhi si alle subxaana wa tacaala uu kuu wanaajiyeyna u wanaag fal aayadda ku xigta ilaahay wuxuu inooga digayaa subxaana wa tacaala kuwo qorshe ka gedisan iyagu maray qorshahaynu sheegayna inuu leenahay priority-ga waa inuu aakhira yeelataa markaad road mapka aad marayso iyo waxa aad qorshaynayso kuwa iyagu taa dabarrogay baa ilaahay tilmaamay waa aayadda ku xigta marka aayadda hore amar bay ahayd tanna waa nahyi walaa takunuu kaaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun ha la mid noqonina baa ilaahay leeyay sidii kuwii alle ilaabay qorshaha uguma jiro ilaahay subxaana wa tacaala iyo cabsidiisa iyo aakhira iyo kani qorshaha uguma jirto maxaa qorshahooda ku jira adduunkan siday wax uga noqon lahaayeen baa ku jira sawgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay walaa takunuu kaaladiina nasuu allah kuwan maxaa ku dhaca faansaahum anfusahum toodaa ilaahay ilowsiiyaa bini aadamka maanta dunida ku nooli material buu dhisay technology-ga oo dhammi waa material buu ka warramaya laakiin bini aadamkii waa la dhisi kari laayay wuu sii baaba'ayaa technology-gu wuu sii horu marayaa bini aadamkuna maxay wuu sii dib socdaa dhaqan ahaan akhlaaq ahaan caqiida ahaan dadnimo ahaan wuu sii bahaloobayaa bini aadamka dunida jooga dal dhan baa waxaa loo baabi'inayaa in yaroo dhaqaalaha in laga helo dan kale iyadoo aan laga lahayn shidaalkiisa la boobo ama waxoogaa macdan oo ku qarsoon la soo qaato idan wuu sii bahaloobayaa marka wixii naftooda dari ugu jirtaa la ilowsiiyey ama ay ka tageen faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun kuwa layna yidhi ha la mid noqonina waa kuwee المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم نسوا الله فنسيهم كوا مسألة كوسي فيسني كوا نفتود إلا با إلهينا تود إلا وسيي إلهي إلا با إلهينا نفتود إلا وسيي والمنافقين با إلهي تلمامية إذن أيها الأحبة
كوي قرشه ذا آخرة أبو الريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كوي جنة قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دوني دا مركانو جوغني بي حسابتنا وقو جرتي الله كعبسي مركانو ريراها يددك يقل جوغني أيانو إلهي كعبسنين سبحانه وتعالى سيدا وقلنا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كوي قرشها سكح ماضينا آخرة إلهي وحينا قلت المامي قال إنا يردنا يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نولش إذا ما وحور مرصده أيها الأحبة نولش قرشا الآن ما صعته سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدقن كيسيبنا إنا برية دين تانا إنا فريسة إلهينا وحينا لي والمستقبل كينا آغا مستقبل كاين لآغا وحي وباهنت بين ليني كو الله كعبسي لبا وحي وباهنت بين ليني إني نكدد لما ينفعنا في الدنيا والآخرة وإننا عاجزين صدح وحي وباهنت هاي inaynu dunida waa la isluminayaaye riskigu uu tiro badan yahay inaynu qorshe ka yeelano saynu isaga awdi lahayn ama isaga joojin lahayn hadduu yahay naftaada iyo hadduu yahay qoyskaaga iyo hadduu yahay ummadaadaba riskigaa taagan saad isaga awdi lahayd afar waxaynu u baahanay inaynu eegno mustaqbalka dheer inaynu mudnaanta koowaad siino idan gabagabadaydu waxay tahay ilaahay wuxuu yidhi waqul icmaluu fasayara allahu acmalakum warasuuluhu walmu'minuun wasaturadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada waar camal sameeya baa la yidhi ilaahay iyo rasuulka iyo ummadduba way idin arki doontaa waxa samaysaan aakhirana ilaahay baa idinka warramay wixii aad samayseen sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin